السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات وليبا لها همبليو ولينا كهمبليي سنة جوري اللي إحنا سدحات وكوري اجتماعات الصومالية حرية قادة جوميسي فرانسيسكا يوتيليانيكا يوإنجليزكا أو جوميسي داي أمد الصوماليات مقاعين ولي عبد الله الشيخ محمود ولكم مدها حمنا أوروبا قردنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أكو هلا مقعد قدومي كحجين كأورك حبرشدي وعيقلنت كرادنال معناتي حرية قادة الصومالية كسوة ريكتي لحدني تحقوردي لحي لواتنك الجون وحان لها أمد الصومالية همبليو معناتي نحايد اللي همبليو. أنا ومقعي هي عبد الرحمن محمد أحمد كنامد حوين كتلسان أورك وعيقلنت garaadmaal waxaa maanta ummadda Soomaaliyeed aan ugu hambalyeynaa 26 Juun oo ay ka soo wareegatay sanadkii ama sanad guuladii 63aad maanta waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo gaar ahaan waxaan boqolkiiba boqol aan u hambalyeynaa marka aan leenahay hambalyo ururka garaadmaal dhammaan say wada dhanyihiin ha joogaan dal iyo dibad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وورنت الله سبحانه وتعالى محدث كلام مقعي وفاضل محمد أحمد كم إذا حبنا أورك جرادمال هل كان وحارة إن هنبريو قدر أمد الصومالية وكأدن طلبات كحرية ده لحدني سدح جوردي كسوريقتي كونفورت الصومالية إنك قاعدة تليانية قبل وقوينا إنك قاعدين جمستيه إنجليزكا هل كاسو أي كم ذوبين كودي جولايو لبعتني لحدي جون هل كا وحقاتي سو وقوي الصومالية أي وحق قاعدة حرية ده جمستيه إنجليزكا sidoo kale 27 Juun 1977 xurriyadda waxay qaatay Faransiiska ka qaatay Djibouti marka ayaanto dhan wax usbuucan oo dhan ama toddobaadkan oo dhan waa wada xurriyadsanahay waxaan ku jirnaa toddobaadka xurriyadda marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan toddobaadkaas. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأه قدوميها أورك وحبرشة وعقلت جرادمال حال كان وهم بلينا يا رمان أمد الصوماليات دل إدود ملك استأجبته نحن كوجد جرنا تضوات كي حرية ده أو أي وهرس لحيل بعتن كي جون أو أي كسوري قتي سنة كي لحدني سدحات ما ننتهي حرية إقامة الصومالية أما دول صوماليات علن لقتاجو sidoo kale inta waxa toddobaadkii xuriyada kamid isla kooda luuli oo soo food leh oo iyadana aan ugu hambalyeynaayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo gobolada koonfureed iyo waqooyiba ay xuriyada ay ku midoobeen ayagana koonfurna ay qaadatay labadaasna ay midoobeen sidoo kale 77kii ama 1977 ha qaatay gobolada yani Djibouti ayaa Faransiiska xorooday marka sidaas darteed dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan xubnaha ururka waxbarashada wacyigelinta garaadmaal dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo mahadsanid